komishinka qaranka xakamaynta cudurka HIV ayaa barnaamijka baraaruga ee wacyigelinta jaamacadaha gobolka Maroodijeex ku qabtay jaamacadda Shifo ku taala magaalada Hargeysa. Ugu horeyn waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay komishinka gudoomiye xoghaynka jaamacadda Shifo Cali Axmed Cali. Dr. Mustafa oo ka tirsan waaxda wacyigelinta ayaa isna ka sheekeeyay cudurkan. Ugu dambeyntii waxaa soo afmeeray Maxamed Xaaji Yaasiin agaasimaha baabulka iyo wacyigelinta ee komishinka xakamaynta cudurka HIV-ga. maanta way bishu tahay 9 waxayna soo booqday komishinkii qaranka ee HIV-ga. runtii komishinkaasi wuxuu adeegaa in ummadda uu wacyigelin dhammaystiran ka siiyo xanuunka iyo dhibaatada uu leeyahay. runtii xanuunkaasi waa xanuun dhibaato badan oo bulshadeena iyo bulshada caalamka oo dhan dhibaato ku ah, runtiina da'yarta aafeynaya. sida aawadeed insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in idinku aad noqon doontaan ardaydii mas'uuliyadda